waa han iyo hiyikac hadda ku jira dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliya in la dhiso la kiciyo la habeeyo khaasatan annaga ciidanka booliiska Puntland booliiska Soomaaliyeed waxaan rabaa inuu ahaado booliis aan xuduud lahayn oo shaqadiisii iyo hawlihiisa ay si caadi ah u soconayaan marka tii xigtina waa midaan dambe hadda aan leenahay war federal maadaama uu wadankii aadayo sidee loo tayeeyaa booliiska sidee booliiska uu noqdaa booliis federal iyo booliis goboleed booliisku waa sugayaasha nabadgelyada iyo ilaalinta sharciga booliiska Soomaaliya waxaa la aasaasay 72 sano ka hor oo ku beegan 1943 marxalado kala duwan oo horumar iyo hoos u dhacba leh ayuu soo maray dhicitaankii dawladda Soomaaliya 1991 qaybaha kala duwan ee ciidamada qaranka waa ay burbureen 25 sano kadib waxaa bilaabmay socdana dadaalo lagu dhisayo ciidanka Soomaaliya waxaana arrintan iska kaashanaya taliska ciidanka booliiska federaalka Soomaaliya iyo Puntland akademiyada tababarka booliiska Soomaaliya oo ku taala degmada Carmo oo ka tirsan gobolka Bari ee Puntland marka hadda waxaan ku tala jirnaa marka inaan step kale u gudubno oo ah sidii lagu soo nooleyn lahaa wax qabadkii Carmo ay qaban jirtay oo haddana saddexdii qaybood intay isu imaadaan bal laga fikiro in kharashkeedii la helo ay noqoto mid ummadda Soomaaliyeed wax u tarta marka bilowgii bishii Oktoobar 2015 Puntland waxaa soo gaaray taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya wuxuuna imaanshihiisa Puntland uu ku soo beegmay xilli isbedel iyo tababaro u socdaan ciidanka booliiska Puntland kaasoo yimid ama la dardargeliyay tan iyo markii xilka taliyaha booliiska Puntland uu la wareegay General Cabdirasaaq Maxamuud Yuusuf afgudood booliiskan martuu ahaan laakiin waxaana soo dhaweeyay ilaa iyo madaxdii ugu sareysay dalka weey oo nala socday marka waxaa kaloo soo dhaweeyay dadweynihii oo meesha runtii noo arkay in maanta talaabo fiican booliiska ay soo qaadeen sareeyo gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa intii uu joogay Puntland isaga iyo taliyaha ciidanka booliiska Puntland waxay kormeereen akademiyaha tababarka ciidamada booliiska Soomaaliya ee Carmo akademiyaha tababarka ciidamada booliiska Puntland ee General Matukade horena loogu yaqaanay Abqaale talisyada ciidamada booliiska ee Garowe Boosaaso iyo Galkacyo وأنا ملاحظة يعني لو ماذا قلت له واحد من بوقشة حتى إنه فايديسي إن شاء الله واحد من وكلنا وإنه فايديسي أسكري بوليسكا سيدي سبب إنه النقض مد وحنا قرأ وحنا آخرية وأيو تخصصية قايبتود أيام كم مارمين إن أسكري وحنا قرأ وحنا آخرية وحكم إذا إذا أنت عشورها أو تروتاري لو يغنى وحكم إذا baarista dambiyada oo CID loo yaqaan tayeynta iyo habaynta ciidamada booliiska Soomaaliya muhiimad intee leeg ayuu u leeyahay dhisitaanka dawladnimada iyo xasilinta dalka in qaabka aan rabno inuu booliiskeena u howlgalo si xiriirkiisa shaqo uu samarna u go'in wax kasta horta inay sii socdaan iyo inay hakadaan iyo inay go'aanba waa talo rabbi ku xiran xaqiis laakiin aniga niyadeyda iyo inta aniga fikirka ciidanka booliiska dib u habeyntiisa ila qabta oo ugu horeeyo madaxweynaha dawladda waxaan isleenahay waa sii soconaya isbedelka iyo sixidda lagu wada ciidamada booliiska Puntland ee Soomaaliya ma yihiin mid qorshe loo dajiyay oo sii socon doona xiriirka wada shaqaynta ee u bilaabmay taliska ciidanka booliiska federaalka Soomaaliya iyo Puntland muxuu soo kordhin karaa booliiska Puntland iyo Soomaaliya markay timaado inay iska kaashadaan nabadgelyada iyo qabqabashada dambiilayaasha oo deegaanada u kala gooshi kara in qof magaalo Hiblaayo uu dambi ka soo galo oo uu soo baxo magaalo kale uu imaado ku badbaado yani taasiyada waa mid kulli shaqada booliiska aad wax ugu dhameysay way marka wada shaqayntii hore u jirtay baan hadda sii kordhinay inay wada shaqayn ahaato
iyo ka warqabka yani booliiska federaalka inuu ka warqabo booliiska kale ee ku kala sugan dowlad goboleedyada iyo maamulada kale يعني wuxuu gacan siin karna gacan siiyo haday ahaan la tababarada yar yar iyo haday ahaan la qalabka yar yar inta marka yani ujeedada aan kaleena taas way tababarada iyo qalabaynta ciidamada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya ma ku jiraan in ciidanka bilayska loogu daro hub marka midda cunaqabateynta saaran waxa way dib wadanka dhan haysto way laakiin waxaan ku jirnaa qaab naloo ogol yahay in aan keensan karno hubka fudud oo loo baahan yahay shuruudahaas runtii maartay waa fulina oo ay ka mid tahay in la ogeysiiyo qolooyinka ku shaqada leh in hub noocaas aan soo iibsanayno ama yani kaalmo ahaan loo siinayo intaan la keenin ka hor hadda anaga waxa weeye waxaan direynaa xamar u direynaa 20 arday oo kamida 70 arday oo horay aniga ka hor loo diyaariyay leyl Israakiil oo awal dawladda Itoobiya la rajeynayay inay naga qaabisho laakiin dib u dhacay 20 kamida waxaan u direynaa leyl Israakiil ku xiraysan iskoola Buluusiya Muqdisho Puntland intii uu ku sugnaa taliyaha ciidanka bilayska ee Soomaaliya uuna tagay magaalooyinka duwan waa sidee xaaladda uu ku arkay dhulka runtii waxaan ku arkay nabad aad iyo aad u fiican oo aan wax isbaara oo inta badan koonfurta maartay dibka ka taagan ee isbaara iska jidgooyin aan sharci ahayn iska jira oo aan lagu arkin runtii kala dambeyn marka booliiska wadooyinka marayo maartida loo maqlay kala dambeyn aad u qurux badan ismaandhaafyada siyaasadeed xilliyada qaarkood ku yimaada dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka hoos ma u dhigi karaan wada shaqaynta taliska ciidanka bilayska Soomaaliya iyo maamulada dalka jira sida Puntland oo kale midda siyaasadana de waxa way meelna looguma gudbi karo laakiin taas madaxda naga sareysa ka jawaabaysa siyaasadda ciidamada bilayska Puntland ma noqon karaan kuwa ilaaliya shuruucda caalamiga ah sida xilliyada dadka lagu amro inay xidhaan oo kale taasoo marar la xidho qof aan maxkamadda aysan soo xukumin qaladaadkaas ma ku dhahayo ma jiraan way jiraan laakiin waa arrimaha sixitaankooda hadda lagu jiro ayaga ruuxooda waxaan rajaynayaa shacabka arrin aan ka codsaday baa jira shacabka Puntland oo ah ciidanka iyaga waa tababaraynaa waa tayeynaynaa dareyskoodan habaynaynaa sharciyadoodii baan habaynaynaa nidaamkay u shaqayn jireen baan habaynaynaa inta ka shaqaynayno in loo dulqaato oo dulqaadna loo sameeyo waayo bini aadan baan nahay gefku markasta waa dhacaya laakiin gefku ka daba tag buu leeyahay bayaan loo xaqiijiyo loo bandhiga garsooraha runta aan ka baqano xilkiisa sharcigu baa u yeesha هذا يا قيرة إيه قشي وحاجة على بوليس كسومالي المدينة ونقضة حدود كان وبابو إن شاء الله ونا دمان دونا دولا هاي darajooyinka ciidamada Puntland iyo magacaabida qaybaha bilayska xilalka ma ku jiraan meelaha sixitaanka lagu sameyn doono booliiskuna hanaan waafiya ma u qabsan doonaa waajibaadkiisa shaqo ee sharcigu u ogol yahay qofka waxa kaliya oo aan anigu maanta shaqo u hayo kaga qaadaya ama xil ugu dhiibaya waxa weeye aqoonta positionka loo dhiibay ama uu joogo oo u leeyahay weeye saraakiishii aan ugu imi oo xilalka haysay diyaar uma ahi inaan ninna xilkiisa ka qaado nin meel aan ka
ka qaaday oo meel kala geeyey oo kaa ka soo qaaday oo meeshan keenay taas isku bedbedelid baa la yidhaahdaa dad badan oo soo joogay xilliyadii ciidamada bilayska Soomaaliya ugu wanaagsanaa ayaa aaminsan in dib loo soo celin karo haybadii iyo tayadii ay lahaayeen ciidanka bilayska Soomaaliya isaga wax taban taabiye ee betela saarta ku tixgeliya qaar baa narsiga taa u sheegsidee kan tiriiga nabadda u shidana dhabugu taageera wixii shalayto laga soo tegay iyo maanta waxa taagan turxaan bixinta beeraha ku wada oo shawada taala waa sida talaalada waqtiga kaga talowdaane haddii kala tabtiina ku jira kala ma haysaane tacsibadata geeridu markay aad u tira beesho teel markuu soo haro baa la istabaya taliyaha ciidanka bilayska Soomaaliya ayaa intuu joogay Puntland qiray in guud ahaan marka la eego ciidamada dalka ay ugu horeeyaan dhanka tayada kuwa Puntland madaxweynaha dawladda Puntland ayaa isna sheegay inuu danaynayo dhisitaanka ciidanka bilayska Puntland wuxuuna xusay in xukuumaddiisu ay door weyn siinayso horumarinta ciidanka bilayska isbedelkaasna wuxuu ka mid ahaa isbedeladii reformkii qaybta nabadgelyada security-ga مرض أبلغ أفرت الرفوم أفرت إسبدل متك دقارها متك شغالها دولة عدالة إيوه أمنية أنا تاس قيب كتاعي إن بوليس كلا تيجيو لا تراكوبو لا صحو لا تربرو هذا رأس عطانو لود سكول أبقى عليه عرمو أي بوليس هو صعدا إلا استعفيه كوي بري شري مدو لطها برو كوي مدو شري بر لطها برو hawshaas meel fiican bay maraysaa waana dhammaatay waana gabagabo ciidankiina la soo koobo ciidan wanaagsan oo kooban oo tayo leh oo meel walba ka howlgeli kara wadanimada Cabdirasaaq iyo qof walba saasay noqdo Soomaalina isdacdan jecelahay bis Thank you.